السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواد والاليال إلهي هني بركيو بارك الله فيكم ما شاء الله. عاوة سيدا سوكر وحان ربا إن شاء الله إنني لو داغو ريوينكي أن كوبالا سنين إن شاء الله. عاوة وحان ربا سيديدي لباتن ريو oo cajiib badan oo qaarna ay ku jiraan walaalihi na soo weydiiyay riyooyinka jawaabahooda. Riyada ugu horeysa walaaliyaal waxay sheegaysaa qofkii ku riyooda mas, yani masa aragtay adoo waxa ku riyootay adoo mas arkaayo, qofkaas waxay noqonaysaa riyadiisa walaaliyaal wuxuu kala kulmayaa ehelkiisa cadaawad, ama hadduu nin yahay naagtiisu cadaawad kala kulmayaa, haddii naag tahayna ninkeeda ayaa cadaawad kala kulmaysa, sidaasoo kale ilmahooda ayaa cadaawad kala kulmayaan. ama haddiiba intaas cadaawad kala kulmin waxay cadaawad kala kulmayaan dariskooda ayaa waxay yihiin dad xaasidiin ah oo haddana shar badan. sidaasoo kale walaalayaal qofkii ku riyooda asagoo mas qaniinayo, ama hore ha kaa qaniino ama gadaal ha kaa qaniino, waxay la mid riyadaas waxaa fasirkeeda taa walaalayaal qofkaas cadowgiisa ayuu wuxuu kala kulmayaa dhib aad u daran, yacni darbo ama dhib aad u daran ayuu cadowgiisa kala kulmayaa. sidaasoo kale qofkii ku riyooda, yacni qofkii ku riyooda taajka boqorada loo saaro, qofkii ku riyooda qofkaas wuxuu riyada fasirkeeda taa cilmi badan iyo qur-aan, yani qofkaas wuxuu noqonaya qof caalim ah ama wuxuu noqonaya qof xaafid ah. sidaasoo kale gabadhii ku riyooto walaalayaal ayadoo taaj loo gelinayo, taajkan boqorka waay, gabadhii ku riyooto ayadoo loo gelinayo, gabadhaas waxay guursanaysaa nin yacni mansab weyn leh, yacni mansab sare ama macruuf ah, ama nin yacni aada bulshada xaggooda qiimo ku leh ayay guursanaysaa, yacni mansab weyn leh. saasoo kale waxay dhalaysaa wiil, yani hadduu nin qabo oo xaamilo tahay waxay dhalaysaa wiil. sidaasoo kale walaalayaal qofkii ku riyoodo asagoo meel amni joogo, meel nabad joogo, qofkii ku riyoodo cabsiyaa ku riyootay adoo meel nabad joogo, qofkaas waxay daliil u tahay toobad, qofkaas wuu toobad keenayaa. hadduu markaa dunuub iyo wax dembi ka dhacay oo ilaahay riyadaas ku tuso, qofkaas wuu toobad keenaya, qof wanaagsan buu noqonaya. qofka sidaasoo kale ku riyooda walaalayaal asagoo la duugaayo, wuxuu ku riyooday asagoo la duugaayo oona nool yahay, asagoo nool oo la duugaayo ayuu ku riyooday, qofkaas wuxuu la kulmayaa dulmi iyo dhib badan. sidaasoo kale qofkii ku arka jirkiisa dhiig, yani waxaa ku aragtay jirkaago dhan dhiig ah, dhiiggaasna meel uu ka yimid ma taqaani, yani jirkaaga meel uu ka yimid ma garanaysa, qofkaas wuxuu noqonayaa waa qof maalkiisa ee xaaraan ku jirto. waa inaa maalkaaga ogaataa xaaraan baa ku jirto, xaaraantaas ka saar. ama dad baa kugu been abuuraayo, yani kaa been sheegaayo, dadkaasooda ka filin, qof aada ka filin ayaa beenkaa sheegaayo, ama maalkaaga ayaa xaaraan ku jirta. sidaasoo kale qofkii ku riyoodoo arka maskaxdiisa inay weyn tahay, maskax weynaa ku riyootay, waxaa waaye daliil u tahay qofkaas qof caqli leh. sidaasoo kale qofkii ku riyooda asagoo maskax lahayn waxay asagana daliil u tahay inuu jahliya, qofkaas jaahiliya. sidaasoo kale qofkii ku riyooda asagoo adduunyada ka dhex baxayo, waxaa ku riyootay adoo adduunyada ka dhex baxaysa, qofkaas nin hadduu yahay xaaskiisa furaya, oo xaaskiisa ama naagtiisa ayuu furaya. saasoo kale qofkii ku riyooda walaalayaal asagoo deen iska bixinayo ama xaq lagu leeyahay iska gudaayo, qofkaas wuxuu noqonayaa qof riximkiisa xariiriyo, maskiinkana quudiyo ayuu noqonayaa. qofkii saasoo kale walaalayaal ku riyoodo asagoo dhex joogo beer cagaar ah, ama wuu arkay ama waa dhex jooga, waxay daliilkeeda tahay janno waay. qof sifadaas hadduu isku arko waa sifo janno ah.
ama qofkaas ahlujanna waa. saasoo kale qofkii isku arka walaalayaal, ama qofkii riyo ku arko dahaba aragtay, qofkii dahabka arko arrin xunaa ku dhacayso, arrin xunaa ku dhacaysa. qofkii sidaasoo kale arko asoo dahab la siinayo, adoo dahab lagu siinayo aragtay, qofkaas wuxuu helayaa dhaxal buu helayaa, ama gacantiisu ama wax buu dhaxlayaa. sidaasoo kale maadaama dahabka uu yahay wax lagu farxo ama wax risaaqad uu ilaahay dadka siiyo oo shay fiican uu yahay. sidaasoo kale qofkii ku riyoodo guur, waxaa ku riyoota adoo guursanayo, riyaa ku aragtay adoo guursanayo, qofkii arrintaas ku riyooda waxay tahay fasirkeeda ilaahay baa qofkaas ilaalinayo oo dhoorayo, qofka marba guur hadduu ku riyoodo. sidaasoo kale qofka hadduu waa isla riyadii, ama wuxuu helayaa usrad ayuu helayaa. qofka guur hadduu ku riyoodo, ama ilaahay ayaa dhoorayo ilaalinayo, ama wuxuu helayaa usrad, xaas iyo guur, ilmo iyo wax buu helayaa, ama diin buu helaya. hadduu qofkaas qof wadaad ahayn ama qof diin ahayn diin iyo akhlaaq wax wanaagsan buu helayaa, ama wuxuu u soconayaa yacni munaasabad weyn ama arrin weyn ayuu qofkaas u soconayaa. qofka arka walaalayaal asagoo xabsi kasoo baxay, waxaa aragtay riyo adoo xabsi kasoo bixis, qofkaas cudur xun ayaa ilaahay ka badbaadinaya, cudur xun ayuu ka badbaadayaa. qofkii arko asagoo xabsi galayo, qofkii ku riyoodo asagoo xabsi galayo, qofkaas cimri dheer ayuu helayaa, ama dad saaxiibadiis uu jecel yahay ayuu la kulmayaa. qofkii sidaasoo kale arka asagoo ilaahay u sujuudayo, riyo wuxuu ku arkay asagoo ilaahay u sujuudayo, qofkaas noloshiisa o dhan wuxuu ku dhamaysanaya guul iyo wanaag iyo wax fiican. qofkii saasoo kale walaalayaal ku riyoodo daruur, waxaa ku riyoota daruurtu qofkii ku riyoodo waxay daliil u tahay cilmiga iyo fiqiga, yani qofkaas qof caalima ama fiqi wax fahamsan oo diinta wax ka yaqaan ayuu noqonayaa. qofkii saasoo kale ku riyoodo ilkihiisa oo soo daadanaya, waxaa ku riyoota ilkahaaga oo daadanaya, qofka ilkihiisa daadanayo ku riyoodo waxay tahay cimri dheeri, ilkahaagoo jajabayo ama ilkahoo kaasoo daadanaya ayaa ku riyootay, waa cimri dheeri. qofkii saasoo kale ku riyoodo ilkaha dhan, kan ilkaha qaaraa kasoo daatay, kan ilkaha dhanaa kasoo daatay, ama indhahuu behelay, wuxuu ku riyooda asoo indha la, ama wuxuu ku riyooda asoo ilkaha dhan ka daatay, qofkaas ehelkiisoo dhanaa dhammaanaya, keligiisaa kasoo haraya. saasoo kale qofkii ku riyoodo walaalayaal asagoo gacanta ku haysto midi, wuxuu ku riyooda asagoo gacanta midi ku hayso, haddana maxkamad asaga lagu maxkamadeynayo dhex taagan, maxkamaddii lagugu maxkamadeynayo adoo dhex taagan oo midi gacanta ku haysto, haddaa ku riyootid waa guulaysanaysaa, oo qoladii waa ka guulaysanaysaa. sidaasoo kale qofkii ku riyooda asagoo midi loo dhiibayo, adoo midi lagu dhiibaya ku riyootay, qofkaas risaq badan ayuu helaya, wuxuu ku naaloonayaa risaq. qofkii saasoo kale ku riyooda walaalayaal asagoo wax cabayo, marba haddaa ku riyooto riyo adoo wax cabayo, waxay calaamad u tahay hidaayada iyo cilmiga. qofkaas waa hanuuni hadduu lunsanaay, hadduuse cilmi lahaynna cilmi buu helayaa. qofkii saasoo kale ku riyoodo asagoo cabayo biyo qabow, waxaa ku riyootay adoo cabaysi biyo qabow, qofkaas wuxuu helayaa maal buu helayaa, ama xoolo xalaala ayuu ilaahay siinaya, maarata xoolo xalaal ama maal xalaal ayuu ilaahay siinaya. qofkii saasoo kale ku riyoodo walaalayaal asagoo kacbada dawaafay, waxaa ku riyootay adoo kacbada dawaafaysid, qofkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala oo riyada noocaas ku tuso, hadduu addoon ahay ilaah waa xoreynaya, xor buu ka dhigaya. hadduu ahay qof caasi ah, oo qof caasi ah hadduu ahay, ilaahay wuxuu ka xoreynaya qofkaasoo kale naarta, naarta ayuu ka xoreynaya ilaahay. hadduu ahay qof doob ah oo xaas lahayn, ilaahay guur buu siinaya, wuu guursanaya, nin inagu waxay doonaan ha ahaadaan. qofkii saasoo kale walaalayaal ku riyooda waa ragga waa naagtaadoo dhalaysaa ku riyoota, maxaaskaaga oo dhalayso ayaa ku riyootay ayadoo uur lahayn, ayaad waxaad ku riyootay ayadoo dhalayso, qofkaas wuxuu helayaa maal badan, asagana maal badan ayuu helayaa. qofkii saasoo kale ku riyoodo asagoo yatiin ah, riyaa waxaa ku aragtay adoo yatiin ah,
qofkaas wuxuu la kulmayaa dhib asagana. sidaa darteed marka walaalayaal tawfiiqda ilaahna waafajiyo. riyooyinka walaalahee wadad badan waxaa jira walaalayaal oo riyo committeega noogu soo qora tiro badan. riyada horta walaalayaal dad qof kasta wax horaba iska soo qoraya, qofkii saxsan iyo qofkii qaldan dadka lama kala saari karo. qofka waxaa loo walaalayaal riyada markaa qoraysa inay tahay riyo adiga aragtay. riyada beenta kuma fiicno, haddii kale maalinta yoomil qiyaamo waxaa la kulmaysaa mashaqo. waxaad samey karin ayaa lagu leeyahay samee, ama laba tin isku dheji. rasuulku waa diiday in qofka riyada been ka sheego. midda kale walaalaha waxaa la rabaa, riyada waa laba nooc walaalayaal. mid waa riyo oo qofka uu ku riyooday, riyadaasoo fasir leh. qofna waa wax qalbigiisa uu jecel yahay ama wax uu necab yahay oo ku riyoodo. kaasoo maalinta o dhan waxaa ka sheekeynaysay haddaa ku riyo taas waxaa waaye qofka bilaadan qalbigiisa waa sida canjirka oo kale. waxaa laga yaabaa ninaa isnacabtiin oo isdagaasheen ayaa waxaa ku riyoonaysaa adoo wax saasa, ama waxaa ku riyoonaysaa qofaa jeceshahay adoo markaas guursanaysa. waxyaalaha qofka maskaxdiisa kusoo noqnoqoto ku riyoodo riyadaas ta'wiil male ama tafsiir male. waxaa lagu qiyaasayaa isho qofka asaga waxaa la rabaa inuu markasta waxaasoo kale ka cudubilis. waa sheedaan. maanta oo dhan waxaad ka fikiraysa ama waxaad ka sheekeynaysa ama waxaad jeceshahay waxyaalahaas lagu riyoodo, waxaas waa waxaa raad lahayn. qofka marka waxaa rabaa inuu ka cudubilisto uu dhaho riyadaas ka hilmaam. laakiin qofka riyada oo kitaabta ku qoro nusuustii axaadiistii aayadaha ama ta'wiil culummada ee maaragtay ijmaaca ee ka baxsheen oo kutubta ku qoran sida tafsiir axlaam oo kale, ibn siriin oo kale, oo meel loo raaca leh, annaga walaalahan waa ugu jawaabeynaa. kuwa kale oo maaragtay oo qofka ama qalbigiisa ama niyadiisa kusoo dhaca, ama wuxuu habeenka o dhan maalinta o dhan ku fakiraay, ama wuxuu maalinta o dhan ku sheekeynay, ama wuxuu maalinta o dhan jecel yahay oo sida canjil ahaan oo shaydaanka habeenka ugu soo celiyo, waxyaalahaas oo kale qofka wuu ku cudubilaysanayaa. maaragtay istikfaar badan uu la ibaanayaa, ilaahay subxaana watacaala ka magangalayaa, wuu ka cudubilaysanayaa. waa sida maaragtay saska oo kale ama qarowga oo kale. laanno xadiiska rasuulka wa sala alay wasalam qofka asoo sariirta ku jiifo ama qarwo ama waxyaalo fiicneen ku riyoodo, wuu soo kacaya gacanta bidix ayuu 3 mar acuudu billahi min shaytaan u dhahaya. haddii marka haddana kusoo noqdaa meeshuu gacanta bidix hadduu u jiifo midig u seexanaya, hadduu midig u jiifina bidix u seexanaya. haddii kale uu kusoo noqdaan meeshuu ka guuraya meel kale u tegaya. haddii weli kusoo noqdaan wuu baxay, wuu weysaysanaya, 2 ragacuu tukanaya. waxyaalaha waswaska ama waxyaalaha qalbiga kusoo noqnoqonaya, waxaas walaalayaal waa laga cudubilaystaa, ilaahay laga magan galaa. waxyaalihii kale insha allah waa nila socodsii doonaa, mar kaste waa niisoo sheegi doonaa insha allah. qofkii maalin kaste oo riyo uu na soo weydiiyo commentiga oo ka dhex arko barnaamijkeenana fabiha khayr. haddaa ka weysinna walaal xumaan looguma tegin, waa lagu hilmaamay maadaama commentiga uu badan yahay oo dhinaca maaragtay sheega Facebook ha noqoto ama YouTube ha noqoto ama TikTok ha noqoto, meel kasta walaalaha naga soo weydiinayaan. waxaa laga yaabaa inaan kulligood hal mar la keeni karin, laannahu barnaamijkaana waa barnaamij noo soconaya joogtee. maalin kasta riyooyin oo walaalaha ay jecel yihiin ee meelay weydiiyaan la ayaa rabnaa inaan kula wadaagno. soo riyooyinkaas badan ama riyo xun ha noqoto ama riyo fiican ha noqoto, inaad ka faa'iidaysato. wixii xunna ilaahay ka magan gashay oo tira acuudu billahi min ru'ya suu. haddaa ru'yatu saalix ku riyootinna waxay ka mid tahay juz oo min nabuwa, waxay ka mid tahay qeybta nebinimada. yacni waa wax fadli badan oo ru'yatu saalixa. yani waxaa inta badan ku riyooda dadka wanaagsan oo saalixiinta, ama qofkuu ilaahay khayr la jecelya, ama qofkuu rabo ilaahay inuu hanuuniyo, ama qofkuu rabo ilaahay inuu wax dareensiiyo, ayaa inta badan riyada ilaahay tusaa. taasaa ru'yatu saalixa la dhahaa. soo markaa ru'yo wanaagsan ku riyootid, ilaahay ugu shukri oo ilaahay u mahadnaq, oo ilaahay baa meel ku tusa ama kugu hanuunina ama kugu bidhaamina. haddaa riyo xun ku riyootidna ilaahay baa weli ku jecelo, waa lagu soo celinaya. waxaa lagu leeya waxaasaa kugu dhacay ama waxaasaa kugu dhacay ka joog. qofkaas waa inuu istikfaar badan la yimaadaa, soom badan sameeya, sadaqo badan sameeya, salaatuleyl usoo kaca, ilaahay baryaa oo ka magan gala. macnaa waa masiibo weeyaan. saas darteed ilaahani barakeeyo. jazaakum allah khayr insha allah. qofkii riyadiisa loo fasirana fabiha khayr, qofkii la hilmaamana weliba waa fabiha khayr insha allah. dib baan ugu soo sheegi doonaa. walaalayaal barnaamijka ama muuqaalka laagtaa ka hilmaaminina, walaalaha gaarsiiya si ugu faa'iidaystaan, adigana ilaahay ajirnoo kaasiya laga yaaba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.